بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله وقت عن بدنين أدير ربي حكمه waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka sharxo mowduucu sheekh cabdilqaadir tilmaamay oo ku saabsisnaa ilaalinta ama badbaadada dhallinyarada waa mowduuc runtii muhiimaddiisa leh waayo ubadku ama dhallinyaradu waa mustaqbalka bulshada waana waxa dhaxla ummaddu diinta iyo dhaqanka iyo waxay aaminsan tahay innagu waxaynu ku nool lahay mujtamac lagu tilmaamayo inuu yahay multicultural society ama mujtamac mutacadidi thaqaafaata mujtamac diimo dhaqamo aragtiyo kala gedisan haysta mujtamacaadka caynkaasi u noolla waxaa la yaqaanaa alaqlabiya aw alakhariya ama dadka majority groupku inay yihiin dadka dejiya nidaamka nololeed ee bulshadu ay yeelanayso hadduu yahay nidaamka tacliimiga lagu tababarayo ilmaha mustaqbalka la rabo inuu soo baxo hadduu yahay miidiyaha iyo sistamka waddanku uu leeyahay ee afkaarta lagu faafiyo hadduu yahay qaanuunka waddanka u degsan waxaasoo dhammi waxa ay tilmaamayaan qaabka ummaddu ay u jirayso sida awgeed mujtamac kasta dhaqankiisa iyo aragtiyihiisa iyo wuxuu aaminsan yahay aghariyada xukunta oo dadku muxuu mustaqbalka noqonayaa dee waxaa takhdiidkaasi dejiya ama planninka waxa sameeya dowladda iyo cidda maamulka u haysa inkastoo la yidhaahdo duwalku waa xor oo bulshooyinku waa bulshooyin liberalism oo xor ah oo qofku wuxuu doono uu aaminsan yahay oo wuxuu doono uu samayn karo oo suu doono u fakeri karo laakiin haddana waxaa jira waxa la yidhaha mainstream oo iyagu qaabkay noloshu noqonayso iyo dadku siduu u fakerayo iyo waxa uu cunayo iyo waxa uu cabbi iyo wuxuu noqonayaba maamulo oo ka taliya ciddaa ka baxsani waa cid shaada marka imaa in qofku uu bulshada ka tirsan yahay mainstreamka ama main groupka ama majorityga ama inaad ku tahay minoritiska ka tirsantay minoritigu waa aqaliyaad waa dadka laga tirada badan yahay ama diin ahaan ama dhaqan ahaan ama afhaan wuxuu doona ha ahaado innagu markaynu waddannadan reer galbeedka joogno markaa ka mujtamac soomaaliyeed ama ka mujtamac muslima minority baynu nahy minority groupskaynu ku jirnaa dad iyaga laga tiro badan yahay ma suurtagal tahay markaa inaynu surviveno ma suurtagal tahay inaynu noolaanno nolosha kama warramayno afrika markii la joogayo meelahaasi ma suurtagal tahay in la noolaado nabadgelyada iyo waxa la cunayo iyo baabkaasay ahayd laakiin halkan marka la joogo waxa weeyaan inaan noolaannaa suurtagal mar tahay markaynu ka warramayno biologically inaan u jirro ka warrami mayno oo midabkaaga oo kale sita inaad dhasho ama dad adiga ku egaag inay kaa tarmaan kaa kama warramayno waxaan ka warramaynaa ma noolaan karnaa ma jiri karaan waxaynu rumaysnayn afkaynu lahayn dhaqankaynu haysanay diintaynu haysanay inagoo halka joogna ma jiri kartaa waxay yidhahdaan bulshooyinka laga tirada badan yahay dunida cusub ee maanta laba waddo midunba u furan
waddo dowladuhu juhdi badan kuma bixiyaan oo waddadaa haddaad qanacdo waa waddada assimilation inaad milantid waa waddada mainstreamka inaad ku biirtid xaggu u socdo markaa waad maydhantay mainstreamka haddaad ku biirto macnaheed waxa weeyaan dhaqankooda waxay rumaysan yihiin waxay arkayaan say u hadlayaan say u dhaqmayaan say u fakerayaan say u jirayaan baad ka tirsanaanaysa ama maaha inaad noqoto minority group mintida oo ilaashanaya wuxuu rumaysan yahay iyo afku ku hadlayay iyo luqadiisii iyo waxaasoo dhan ilaashanaya haddaad noqoto minority group markaa ilaashanaya wixiisii oo isku dayaya inuu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa ilaashado waxay u baahan tahay xoog badan bay u baahan tahay xoog ka badan kii balliga sooma taqaaniin ama harada yar qofka ku dabaal barta haddaad oo balli ku dabaalan jiray aad tidhaahdo badweynta hallay dhigo waan soo badbaadayaaye waa adagtay dabaashii balligu inay kaa soo saarto badweynta inay kaa soo kaxayso halkani waa badweyn waxay ku tahay dee mainstreamka kaa soo hor jeeda mainstreamkaydan isku mabda iyo caqiido rumaysnayn mainstreamkaydan isku aragti arkaynin su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa ma dabaalan karnaa inaynu dabaalanaa maxay u baahantahy yacni inaynu dhallo ubad soomaaliya oo muslima waxaynu jecellay wacaynkaa waxaynu rabnaa waxaynugu tafiirmayaa inay noqdaan dad soomaaliyeed oo muslima ama kala horraysiyo dad muslim oo soomaaliya dad diintoodiina haysta dhaqankoodiina haysta taasi maxay u baahan tahay baa isweydiin le markaynu maxay samayna baynu dadkaa dhali karnaa ama hayn karnaa ama wadi karnaa waxaan leenahay dhowr shay baynu u baahannay koo waxaynu u baahannay inaynu fahamno waaqacaynu ku noollay bulshada aynu la noollay inaynu si fiican u garanno waxay taasi inagu saacidi doontaa maxaynu qaadanaynaa maxaynu ka tegaynaa maxaynu isku khilaafsannay maxaynu isku waafaqsannay idan bulshadaa waa inaynu si fiican u daraasaynaa ka labaad waxaynu u baahannahay atasallux aljayid waxa aynu rabno inaynu ahaano inaynu si fiican ugu hubaysannahay hadday diin tahay hadday dhaqan tahay hadday af tahay inaynu ka dheregsanoo si fiican ugu hubaysnaanno waa ka saddexaade waxaynu leenahay waxay u baahantahy dadaal mujaahada dadaal bay u baahantahy iyo xoolo iyo hanti iyo wakhtiba inaynu bixinno si aynu u badbaadno warkoo iska kooban waxaynu leenahay qofka bini aadamka ahay marka hore waa xoran طaliiq ilaahay baa saa u abuuray fii asli tasarufaati waa mukhayar waa mukhtaar waa qof doorta laakiin yata'ahar wa yu'ahir waana la raadaynayaa oo daqdiga ama culayska bulshada iyo qaabkay wax u wadaa wuu raadaynayaa isna wuu raadayn karaa bulshada hadduu yahay qofkii loo baahnaa nolosha dhammaanteedna waa ibtilaaba nolosha dhammaanteed waa imtixaan waxay leenahay marka waxay dhahaan qofka bini aadamkahay waxa uu yahay waxa uu cuno waxa uu arko waxa uu maqlo ayuu qofku yahay bay yidhahdaa maynan caqli lahayn may caqli waa leenahay laakiin caqliga dee looma waxyoodo dhegtiiyo ishaa wax ka galaan caqliga waxaasuu taxliiliyaa eegaa laakiin waxyi kuma soo degayo marka waxa aad tahay waxa aad cunto jidhkaagaa ku koraya waxa aad maqashana iyo waxa aad aragtana maskaxdaada taxliil ku samaynaysooo sawirka ay nolosha iyo aragtida iyo dunida iyo aqoonta iyo wax walba ka haysataa waa intaasi iskuulka iyo waxbarashada iyo jaamacaadku
waxaad maqlaysiiya waxaad arkaysa unbaa la badinaya inaanay noqonin intan markaa ku hortaagane in lagu maqashiin karo taariikhdii bini aadamku waxay soo ahayd in lagu tusi karo aqoonyahanadii hore wixii ay qoreen ama waxay ka tageen laakiin soo duuduuba waxaa tahay waxaad aragto iyo waxaad maqasho iyo waxaad cunto ayaad ka kooban tahay waxay idhahdaan dowladahan dambe xadiidka ah qaabkay u dhisan yihiin fii ra'yi way ka shumuulisan yihiin qaabkii ay u dhisanaayeen dowladihii hore intay xukumi jireen wax yar bay ahayd gacanta dowladda waxa ku jira wax yar buu ahaa xoogaaga cashuure uu dadka ka qaado xuquuq badanba dadku iyo yeelanin ciidamadiisa iyo intaa laakiin dadku noloshooda kaleo dhan xor bay u ahaayeen waagii hore dowladdu say ahaan jireen dowladaha dambe ee iyagu xorriyadda sheegtay everything gacantay ku hayaan everything waddannada qaarkood baa magaca lala baxaa buug buu leeyahy oo magac intaa ka baxsan lama bixi kartid magacada qaar ayaa lagu leeyay waa family nace lama bixi kartid marka xataa magacaad ilmahaaga u bixinaysaa waddannada qaar buu yahay maxduud wax walba waa underlow markaa waxay dhahdaan noloshu markaa ama waa in waxbarasho raadaysaa meesha wax lagu barto waxaa loogu tala galay bulshada in la isku milo oo siyaasadday dowladdu doonaysaa inay ka soo baxaan dad rumaysani bulshadoo dhan inta la ysku milo oo la tawjiihiyo gurigaa doonta ka kaalay ama guri afrikaan ka kaalay ama guri carbeed ka kaalay ama guri kristan ka kaalay ama mid muslima ka kaalay ama mid waxaa ka kaalay waxaa la rabaa madaxaaga in si loo foomgareeyo bolisiga dowladdu uu raalli ka yahay saa daraaddeed waa compulsory education inta hore compulsory muxuu noqday marka la falsafadayna waxa laga yaabaa in la yidhahdo dadkaa la rabaa dhammaantood inay wax akhri karaan wax qori karaan waxaad akhriyaysa iyo waxaad qoraysaa waxa weeyaan dowladdu waxay sheegaysaa inaad fahmi karto waraaqday kuu soo dirto inaad garan karto siday u fakeraysa inaad garan karto siyaasiyiintu waxay sheegayaan inaad garan karto akhriyi karto waa in lagu waamuli karo waa in lagu wadi karo haddaanad waxna qorin waxna akhriyin cidna ku wadi kari mayso laakiin waa in lagu wadi karo hadhow idan schooling systemku wuxuu u dhisay bulshada in la isku milo ra'yi alcaamka dadweynaha waxaa sameeya media sameeya waa la bisleeyaa wixii la doonaya kasta bulshada waa loo bislayn karaa intaa wixii ka baxsan ee geese ee ka dheerdheeraada qaanuunkaa toosiya dad slow baa lagu leeyahay haddaad qanci weydo waxa kaloo dhan ku mari waayaan akhiiran waxay imanaysaa in lagu idhaha that's the law you should follow qaanuunkaasaa dhigaya marka waddo kale ma bannaana wixii soo hadhana qaanuunkaa lagu toosiyaa bulshada caynkaasi aduu waxbaad rumaysantay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi natay dadku ilaahay leeya waxaad tihiin dadka u khayr badan ee bini aadamkaba loo soo saaray caqaa'id baad rumaysantay lagu leeyahy dadka kale waxaa ku tidhaha lakum diinakum waliya diin qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun soo maar kasta ma akhridaan waxaa caabudaysaan caabudi maayo anna waxaa caabudaya caabudi maysaan akhiiran lakum diinukum waliya diin idinku tiinaa leedan anna taydaan leeya waxaynu haysannaa waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan haddaba mainstreamkuna saasuu yahay innaguna caqaa'id kale aynu haysannaa sidee baynu uga badbaadi karnaa inteenna u badani mainstreamka caqiidadiisa ma naqaano maalan schoolinka iyo tacliinta sare iyo jaamacaadka iyo waxa jooga waxaan odhan karaa intooda ugu badani waxay u badan yihiin diin laawayaal kristanna maaha yuhuudna maaha muslimna maaha inta u badan dadka wax dhiga siiba jaamacaadka iyo dadka jooga waxaa ku badan caqiidaydka ah maxay ama waa atheism ama waa bathism ama waa agnostic
ama waa ignostic ama waa skeptic ama waa pantheism waxaasoo dhamme oo caqiida uuna ah soo duuduubo ilaah ma jiro un ka duulaysa iyaga differencekoodu marka la sharxayo wixii doonaa ha u dhexeeyaan maan rabo inaan iyaga ka warramo lakiin waxaan tilmaamayaan waxa weeyaan waxaasoo dhan marka laysku soo duuduubo mainstreamku waa caynkaa sidee baynu ubadkeenna ugu dhex badbaadin karaynaa meesha caynkaas iyo markaa mainstreamkaasi xad buu gaadhsiisayay diin dadka loogu yeedho ay tay yani waxaan xasuustaa sheega baska nacasee london dhex mara iclaanaadka ku dhejisnaan jiray waxaa ka mida iclaan sheegaya ayay qoladaasi leeyihiin lacagta ay bixiyeen dowladda hoose waa ugu dhejisay london basas baa dhex maraya ay ku qoran tahay there is probably no god stop worrying and enjoy your life waa london baskaa weyn maaha wax qarsoon ee suuqa maraya ayaa dheegiisa waxaa ku qoran ilaah ma jiro warwarka joojiyo noloshaada maaragtay enjoy garee dhaqankaasay ilmuhu joogaan waxaana nidhi waxay maqlaan iyo waxay cunaan iyo waxay arkaan iyo waxa loo sheego weeyaan weliba intaa waxa dheer qofku marna wuxuu malakada wax kala sooca u dhisan tamyiiz baa u dhisan marna uma dhisna ee halku ku bilaabay aduu waxaa timi adigoo maskaxdaada already wax ka buuxaan adigoo ilaah rumaysan oo rasuul rumaysan oo nebi maxamed rumaysan oo qur-aan rumaysan oo diin rumaysan oo af soomaali garanayo oo dhaqan loo wax sax u yaqaano wax qalad u yaqaano aduu kaasaad ku timi laakiin halkan ilmaha ku dhashay nersarigaa uga bilowday ilaa jaamacadda galay waxaaba cidi uma sheegin aad waddo waxaad waddoo dhan cidi uma sheegin sidee baan u ilaalin karnaa haddaba waa masale runtii aada u adag fududna ciddii alla u fudaydiyo ilaahay wuxuu leeyahy qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirtu ana min almuslimiin nebi maxamed waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii waxaad tidhahdaa aniga salaadaydu iyo gowracaygu ama cibaadaadkayga oo dhammi noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala muctaqadkaasi ma gudbin karaynaa qofku haddii la dhiso oo muctaqad ahaan dhisan yahay qofku haddii la dhiso uu muctaqad ahaan dhisan yahay wuu survive garayn karaa ilaa xaddin maa wuu noolaan karaa walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa dad meelo adag galay oo badbaaday maalan nebiyullaahi yuusuf baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya nebi yuusuf oo isagoo ilmo yare duul gaaleed la noolaaday oo haddana badbaaday laakiin nebi yuusuf caqiidu haystay wuxuu ku badbaaday waa kaa innii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna biاllaah wuxuu ku badbaaday nebi yuusuf wuxuu leeyahy waxaan ka imi millata qowmin laa yu'minuuna biاllaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun waاtabactu millata aabaa'i ibraahiima waisxaaqa wayacquub ma kaana lana an nushrik nebiyullaahi yuusuf wuxuu leeyahay isagoo yar anigu waxaan diiday diinta dad gaalo ah oo aan aakhiro rumaysnayn waxaan raacay buu leeyahay diintii aabbayaashay ee yacquub oo ina isxaaqa oo ina nebi ibraahim ambiyadaasaan ku abtirsadaa kuwaa diintoodii baan haystaa buu leeyahy dhallinyar u ahaa waayo qur-aanku fata inuu yahay buu ku isticmaalaya waata gabadhii dumarku maxay lahaayeen waqaalat niswatun fi lmadiinati imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha can nafsi qad shagafahaa xuba inaa lanaraaha fii dalaalin mubiin markii ay dumarku rabeen inay kufsadaan ee dhibta u geystaan
qur-aanku wuxuu tilmaamaya inay haweenkii magaalada jooga yidhaahdeen imra'atu alcasiis turaawidu fataaha, ninkii madaxda ahaa gabadhiisii waxay raadinaysaa inankeedii yaraabaa hunguri ka galay oo way caashaqdo way jeclaatay. idan fata buu ahaa, laakiin wuu badbaaday. maxaa badbaadiyey? waxaa badbaadiyey caqiidadatan. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya koox dhallinyaro ah oo bulshaday ku jireen oo dhan ka tegey, oo weliba culammadu waxay yidhaahdaan min alqusuuri ila alkuhuuf bay u socdeen bay yidhaahdaan. dhallinyaro dabaqada sare ka tirsan bay ahaayeen, yacni dabaqada waddanka maamusha dadkay dhaleen bay ahaayeen. laakiin markay ogaadeen inaan caqiidadoodu sida tan ku badbaadaynin, dowladdii iyo wixii oo dhan intay ka tageenba waxay doorteen inay god degaan oo ka tagaan. ilahay wuxuu qur-aan ku tilmaamayaa innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda. waxay ahaayeen baa ilahay leeyahy fitya, dhallinyaray ahaayeen. aamanuu birabbihim, dhallinyaro rabbigood rumeeyey bay ahaayeen, oo annaguna aanu hanuun u kordhinnay. warabatnaa calaa quluubihim id qaamuu, ilaahay baa wuxuu leeyahy qalbigoodana waanu u xidhno, waa u adkaynay markay ku dhawaaqayeen rabbunaa rabu الsamaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shatata. markay ilaahay rumeeyananana waa u xejinnay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. fitanka iyo imtixaanka waa ka saaray. qur-aanku wuxuu ka warramayaa nin dhallinyaro ah oo ka hor yimid tolkii wixii ay haysteen, oo si uu xujada ugu ogo asnaamtoodii badh burburiyey badhna ka tegey. fii nadari, hadday masaladu tahay lilamri waalmacruuf in asnaam la burburiyo, hadday masaladu tahay dhammaantood wuu burburin lahaa baan u malaynte. laakiin inuu xujo ku ogo daraaddeed kii u weynaa buu ka tegey. nebiyullaahi ibraahim maxay yidhaahdeen? qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim. waxaanu maqallay wiil xusaya oo ka hadlaya sanamadatan oo la yidhaahda ibraahim ayaanu maqallay bay leeyihin. nin dhallinyaraa buu ahaa, tolkii iyo qoomkii wixii ay haysteen wuu ka hor yimi isagoo sida tan rumaysan. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rumaysnayd dad badan oo dhallinyaraa baa ku jiray. dhallinyaradaasi way ka hor yimaadeen tolkood wixii u haystay. iyagoo dhallinyaraa bay ilaahay rumeeyeen. sida ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya isagoo dameer fuushan ayaa nin dhallinyaro ah la soo raacay oo mucaad la yidhaha, mucaad ibnu jabal. mucaad waxay culammadu sheegaan dhowr iyo 10 jir buu ahaa markii islaamku soo gaadhay. dee waxaa baanu dhintay isagoo dhowr iyo 30 jir ah. mashaahiddii nebiga dagaaladu galoo dhanna waa raggii ka qayb galay. nin dhallinyaraa buu ahaa, waxaanu ahaa nin dhallinyaro oo qoon fiican leh, oo axaadiista qaarkood ay ku tilmaamayaan aclamu almuslimiina bilxalaali waalxaraam inuu isagu ahaa, yacni faqiih ilumma inuu ahaa. mucaad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dameer ay wada saaran yihin ayuu nebigu mucaad u yeedhay. yaa mucaad buu ku celiyey. labayka wasacdayka buu yidhaaha, ku ajiiba ilaahay rasuulkiisiiyow. waxba uma sheegin nebiga, waa iska socdeen. muddo markay socdeen buu nebigu haddana ku celiyey, u yeedhay. haddana waxba uma sheegin, acbaar baa la yska socday. cabbaar markii la socday buu haddana nebigu u yeedhay. 3 jeer ama 4 jeer markuu u yeedhay kadib, waa yacni waa ariiq min turuq atacliim bay culammadu yidhaahdaan. waxaa la rabay mucaad inuu soo wada jeesto o wada dhega noqdo, inaan hadalka soo socdaa si fudud u dhaafin. yaa mucaad buu nebigu ku yidhi, atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad? ma taqaanaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay addoomaha? ilaahay xaqa uu addoomaha ku leeyahay. dunidan aynu maanta joogno in badan waxaa maqashaan xuquuqda bini aadamka, xuquuqda dumarka, xuquuqda caruurta, xuquuqda dhirka, xuquuqda xayawaanka, xuquuqda environmentka. weligiin ma maqasheen waxa ilahay xaqiisa ka warramaya? ambiyada waxaa loo soo diraa inay xaqa alle ka warramaan. hadduu xaqaasi saxmo, xuquuqda ka dambaysoo dhammina si fudud bay u saxantaa. hadduu xaqaas la waayo uu qaldamo,
xuquuqda dambe oo dhammi takhabud baa ku dhaca waa legdan maalina raggaa sarreeya maalina dumarkaa sarreeya kolba qoladii xoog badata hadday feminist groupka qaanuun ku xoog bataanna iyagaa xuquuqda u badsanaya hadduu dee raggu ka xoog batana isagaa waa loolankaasi uun idan noloshu waxay loolanka ka baxdaa marka loo daayo rabu samaawaat inuu isagu maamulo isagaa markaa cid walba xaqiisa siiya tilmaama xayawaanku xaqaasuu leeyahay diinta waxay ka warramaysaa xayawaanku xaquu leeyahay environmentku xaquu leeyahay bini aadamku xaquu leeyahay dumarku xaqay leeyihin carruurta xaqay leedahay waxoo dhan ilaahay baa ka warramay laakiin waxaasoo dhammi waxay farac ka yihiin markuu xaqa koowaad sugmo xaqa koowaad waa maxay waa xaq ullahi subxaanaه wa tacaala walidalik nebi moxamed mucaad wuxuu u tilmaamaya mucaad ibnu jabal calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeya tadri ma xaq ullahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeyahay saxaabadu dhaqankoodu wuxuu ahaa iyagoo nebiga ixtiraamay xataa masalada hadday garanayaanna waxay odhan jireen allah warasuuluhu aclam alla iyo rasuul baa garan dabeetana nebigu wuxuu u sheegay xaqa alla leeyahy waxa weeyaan in keligii la caabudo waan cidna loogu shirig yeelin in keligii waad mahadsantahay la yidhaahdo dunidan iyo waxa jooga iyo jiritaankeeda iyo nolosha oo dhan isagaa iska leh free baanu kugu siiyey mujarad io mahad celi buu ku yidhi cid kale iyo aaliha kale iyo asnaam kale ah u mahadnaqine anigoo qura igu mahadi laakiin waa qaliilu min cibaadiya shakuur baa ilah yidhi waxa yar ilaahay inta u mahadnaqda cibaadaddani waa ilahay inu leenahay alla waad ku mahadsantay awaamirtiisa haddaad adeecdo wuxuu ku yidhi dunidan anaa iska leh free baanan kugu siiyey bishardi waaxida shardigu waa maxay waxa weeyaan qaanuun baan u dhigay qaanuunkaasi un raac kitaab baan soo dejiyey sheegaya dunidan saa loogu noolaanayo weliba qaanuunku waa limaslaxatik baa ilaahay ku leeyahy adigu dantaada yahay sidii u fiicnayd aad u noolaan lahayd intaa haddaad raacdo that's all waad haysataa inaad noloshan saad doonto markaa u isticmaali kartid marka ilaahay xaqiisi waxa weeyaan in loo ictiraafo xuquuqdiisaasi mucaad binu jabal nebigu wuxuu sheegay marka xaqullaahi cala alcibaad waa sida tan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam si awgeed buu iyadoo mucaad buu intuu gacanta ku dhegay buu wuxuu yidhi mucaadow wallaahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaadow waan ku jecelay buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ee ha ka tegin salaad qura dabadeeda inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahu igu kaalmee cibaadadaada iyo mahadnaqaada iyo cibaado wanaajinta ilaahu igu gargaar ilaahay baryadaa weydiisa buu nebigu ku leeyay calayhi الsalaatu wasalaam salaad kasta markaad tukato ilaahay baryo baryadaa weydiiso maalin maalmaa ka mida nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa soo raacay wiil yaroo 10 jir ah oo ilmaadeeriyiin cabdillaahi bnu cabbaas yaa ghulaam buu ku yidhi nebigu aleh ghulaamka inta badan waxaa la yidhaahdaa qofku intaanu qaan gaadhin ee uu xaddu tamyiiska meelahaasina soo dhaafay nebigu wuxuu ku yidhi yaa ghulaam war wiilow buu nebigu ku leeyay calayh الsalaatu wasalaam ma kuu sheegaa weedho ku anfacaya waa nebi maxamed oo rasuulkii ilaahay alla soo diraya iyo wiil yaroo wada socda oo xawaali 10 sanawaat meelahaasiya nebi maxamed wiilkan yar buu la hadlayaa markaa wiilka yaraa buu u yeedho wuxuu leeyahay war wiilkan yarow war wax ku anfaca ma kuu sheegaa buu nebigu ku yidhi calayh الsalaatu wasalaam haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxay anfaca ii sheeg xadiidka macruufka aynu naqaana 40ka ku yaal buu u sheegay markaa ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali wixii u ku amray ilaali isna wuu ku ilaalin ilaahay ilaali haddaad ilaalisid isna wuu ku ilaalin ilaahay ilaali hortaadaad ka helaysaaye haddaad cid un wax weydiisanayso alle keligii wax weydiiso haddaad cid un kaalmaysanayso alle keligii kaalmayso ilmahan yar wuxuu barayaa inuu rabbigii ku xidho hadduu kaalmo doonayo inuu ilaahay weydiisto hadduu su'aal qabo inuu ilaahay weydiisto
ilaahay awaamirtiisa inuu ilaaliyo ilaahayna qur-aanku ku ballan qaadayba dee haddaad awaamirtiisa ilaaliso ilaahay waa ballan qaaday haddaynu ilaalinno wixii uu ina faray miihaaqii reer banu israa'iil laga qaaday buu ka mid ahaa haddii innii macakum lain aqamtum الصalaaةa waataytum الزakaaةa waaamantum birusuli waczartumuuhum waqradtum اllaha qardan xasana ilahay wuxuu leey maciinaanahay haddii aa maxay salaada tukataan oo zakada la baxdaan oo ilaahay rasuulkiisa rumaysaan oo u hiilisaan oo gargaartaan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qardi xasana dayn fiican allaad daynsataan idan xadiidku waa sidan un buu la mid yahay ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali isna waa ku ilaalinayaaye ayuha alaxiba su-aashu waxay tahay markaa risaalada nebi moxamed dhallinyaradii la socotay uu gaadhsiinayey ama qur-aanku inooga warramay dhallinyaradu ka warramay waxay rumaysnaayeenee badbaaday hadduu nebi yuusuf yahay hadduu nebi ibraahim yahay hadduu fitya asxaab ilkahfu yahay dadkaa badbaaday waxay ku badbaadeen qur-aanku dadkaa uu ka warramaya mujtamacyo gaala ah bay la noolaayeen haddana waa badbaadeen waxay ku badbaadeen waa maxay waa qadiyat alcaqiida in qofku kow caqiidadu waa miisaanka qofka bini aadamka noloshaba ku garto qofka bini aadamkii wuu wareersan yahay inta aanu garanin min ayna wa ilaa ayn inta aanad garanin xaggaan ka imi xaggaan u socdaa noloshu maxay tahay dunidan yaa sameeyey intaanu garanay wuu hawowsan yahay intaanu garanayn noloshu maxay macno leeday waa lunsan yihi caqaa'iddaana masaladan sharaxda caqaa'iddaa sharaxda xaggaad ka timi sharaxda xaggaad ku socotaa sharaxda maxaa dambeeya su-aasha isweydiinta le waxay tahay caqaa'iddaa ma gudbinnaa waxaa labaad qur-aanku wuxuu ka warramayaa luqmaan alxakiim nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim xikmadda ilaahay inooga soo guuriyey waxaa u weyn ilmihiisii siduu ula dardaarmay ilmihiisii dardaaranku siiyey walaqad aataynaa luqmaana alxikma baa ilaah yidhi luqmaan xikmad baanu xikmaddu waxay dhahdaan waa cilmiga oo meeshuu ku quman yahay la dhigo waa laga yaabaa inaad cilmi leedahay laakiin had iyo goor ijtihaadaadkaa way qaldan yihin wuxuu meeshay ku fiican yihin aanaad la helin xikmaddu bay dhahdaan markaa waa shayga oo halkuu ku qumanaa la dhigo yani xikmaddu waa cilmi iyo taqdiirkaagoo fiican oo laysku daro ilaahay wuxuu leeyahy luqmaan xakiim baanu xikmad baanu siinay baa ilaahay leeyahy xikmaddii la siiyey maxaa ilaahay inaga siiyey waxaa laynooga soo naqliyey suurad loogu magac daro suuratu luqmaan la yidhaahdo qaabkii uu la dhaqmay wiilku dhalay yaa bunaya buu yidhi wiil yarahaygiiyow ibni oo la taskhiiriyey weeyaan yaa bunay wiil yarahaygiiyow buu leeyahy laa tushrik biاllaah ina shirka la dulmun cadiim ilaahay haw shiriik yeelin waxbaa ku lamaanaynin keligii caabud waayo shirkigu waa dulmi dulmigu waa xaq aad cid xaq ugu lahayd oad xaqeedii dafirtay waa dulmiyo ilaahay xaqiisi baad dafirtay weeyaan laa tushrik biاllaahi ina shirka la dulmun weliba cadiimun waa dulmi kii u weynaa markaasuu u sheegay aakhira inay jirto iyo ilaahay cilmigiisi iyo muraaqabadiisi iyo siduu u xisaabay suu dadka wax kastoo ay sameeyaan inay alla agtiisa macruuf yihiin kadib buu wuxuu ugu xegsiiyey mansilat alcibaadaat iyo waxa la farayo aqim الصalaata waأmur biاlmacruufi wanha can اlmunkari waxaa loo tilmaamay sharciga wixii kale saaraa intaa kadib baa waxaa loo tilmaamay addaruuraat alakhlaaqiya dhaqanka laga rabo ka hore waa caqiidadii ka ku xiga waa cibaadadii ka ku xigaana waa maxay waa akhlaaqdii waxaa loo tilmaamay markaasi walaa tusacir khadaka linnaasi dadka ha iska kibrinin dhulka si fiican u soco
وقضية أخلاقية. إذن صدح ده مسألة أو لقمان كورمي وين المهن لغو توابرا عقيدة قمان وين لغو ترينجرية عبادة دينو برطو كصدحاتنا وين لغو ترينجرية رقم كصوبا أخلاق في عنو إسلاميين وحيرا هذا بس عشي سويدين تلو حيتهاي وحيابها إنو كورني iyo meeshanaynu joognaa ma isaqbalayaan su-aasha waa taa environmentkaynu joogno noocuu samaysan yahay ma fahmni innagu se mutasallixiin ma nahay waxaynu ilmahan u gudbin lahayn ma ku hubaysan nahay mar saddexaadkana mujaahada waxaan idhi saddexdaas baynu u baahannay ah inaynu fahamno meeshaynu joogno iyo waxa yaalla inaynu joogno inaynu fahamno meeshaynu joogno iyo waxa yaalla ka labaadna waa inaynu mutasallixiinnay ilmahan 8 saacadood baynu iskuulka u diraa iskuulkana ideologiga yaalla waa kaan tilmaamay waxaan aad ula yaabaa iskuulka waxa lagu dhigo iyo waxa aynu uga warhayno innagu waxaynu naqaanaa iskuulladu meel tacliin lagu bartay inay tahay laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan innagu waxa wixii la loolami lahaa ee muctaqad ahaa ma dhignaa mise ilmaha bidhaantiisa aynu eegannaa waxaynu idhaha wallahi kaygu daroogana ma cabbo khamrina ma cabbo suuqa waalidana ma tago muxuu qabtaa waaye dee wuu iska joogaayo waxbuu bartaayo iskuulkiisu ka yimaadaa dariskiisu akhristaa uu ka baxa darisku akhriya miyaad ogtay iyo waxa ku qoran internetkanu ku jira iyo waxa negoshiye doodaha ka socda iyo munaqashaad ku jira iyo waxaanu ku jira ma garanaysa wuxuu rumaysan yahay weli ma weydiise maya madrasadaan geeyaa okay madrasadaad geysa maxaa lagu dhigaa alif ba alxamdu dheh intaasu ka soo dhigtaa soo maaha intaasi gaalnimo ma ka celinaysa dad ku wada alif iyo alxamdu qur-aanku soo qaybo oo 10 jis hadduu kuu qaybo wax ma ka celinaysaa qur-aanka xifdigiisu wuu fiican yahay laakiin maaha wixii loo soo dejiyey in la xifdiyo xifdigu waa meel dambe waxaa loo soo dejiyey in la fahmo lagu dhaqmo waxaa loo soo dejiyey inuu qofku ku dagaal galo oo bulshada waxaa loo soo dejiyey inuu noqdo jadwalkaagii nololeed waxaa loo soo dejiyey waxaad rubaynayso dunidani xaggee ka timi inaad garatid xaggee loo socdaa inaad garatid ilaahay jiritaankiisa inaad garatid adigu waxaad ku kortay meel aan ilaahay muranba ka taagnayn waxaad ku soo kortay meel aan nebi maxamed muran ka taagnayn waxaad ku soo kortay calayhi salaatu wasalaam meel aan aakhira muran ka taagnayn laakiin ilmahaagu wuxuu joogaa meel intaba muran ka taagan yihin ilaahay ma jiraa mise ma jiro nebi maxamed ma nebi buu ahaa mise nin carbeed uunoo meelihiisa iska joogay buu ahaa aakhira ma jirtaa oo dadkan miyaa la soo saaraya dunidan ilaahba hadduu jiro miyuu la xidhiidhaa wax kitaabla miyuu soo diray waa su-aalahaasi waa warka yaalla iskuullada iyo jaamacaadka iyo meelaha la tago waa su-aalo yaalla si cadna laysu weydiiyo ma aha xagga dambe layskama weydiiyo xagga hore layska weydiiya waa librariyada bugaagta taalla every secondary school england iyo wales ku yaalla british humanism groupku waxay hadiyad u siiyeen young atheist textbook waxay u bixiyeen ilaah ma jiraha ka rumaysanaya yari bugaagtii u akhrisan lahaa waa every secondary school in england and wales ay bilaash u siiyeen waa caqiida la faafinayo ma alif dheba ka celinaysa markaa waxbaad is leedahay iyo ba'a dheh yani ilmaheenna miyaynu wax barray mise waynu canaananaynaa un hadhow ayuha alaxiba meesha aynu ku nool lahay main streamka iyo xooggu haysto markaynu ka nimaadno innagu 3 wax baynu haysannaa waxaynu haysanaa guri
madrasad iyo masaajid. guriga iyo madrasad iyo masaajidku ma u dhigmaan mainstreamka waxa ka socda? ma difaaci karaya? waxay ahayd madaaristeennu inay yeelato maxay? macallin qualifieda, manhaj caqiidada tan iyo waxa kan dhigaya, mabaadi'dan aynu ka warramayno dhigaya, oo gaalnimada qofka ka difaacaya, waqti ku filan inuu u baahan yahay inuu qaato ardaygu, meel ku filan inuu wax ku dhiganayo. mayaynu leenahay intaa? maya, ma lihin weeyaan. waayo innagaan saacidaynin. su-aalaan idin weydiiyo, carruurtiinna markaad rabtaan inay mathematicska iyo physicska ku fiicnaadaan maxaa samaysaan? tuushan baa geysaan. tuushanka maxaa ka bixisaan? saacaddii misaa bixisaan? okay, per an hour hadduu 2 saacadood dhigto £50, £60 say u kala jaban yihiin, meelahaasaa laga qaadaa soo maaha? okay, waxaad ogoshahay xisaabtan £60 lagu dhigto 2 hours kasta. waa 2 hours hadda maaha bishii. hadduu wiig kasta 2 saacadood qaato imisaad bixisaa? waa 4 meeloodoo min 6dana soo maaha? 240 baad xisaabta ka bixisaa. imisaad u ogoshay inuu caqiidadiisa ku dhigto? 20 pound oo muran ku jira soo maaha? wadaadada iyagaan dadka waxba baraynin. haddaad u badatana 20 pound waad bixinaysaa. waxaad rabtaa isagoo inanku xisaab soo dhigtay ayaad rabtaa inaad xisaabta yaro gaadhsiiso uun. inaad xisaabta yaro gaadhsiiso 240 baad u ogoshay. mid lagaba hor taaganyana waxaad rabtaa inaad ka hor tagto tidhaahdo waa inuu qaataa caqiidadan iyo diintatan. laakiin waxaad rabtaa 20 pound inuu ku barto. that's not logic. macquul maaha. waxaad leedahay macallinka madrasada jooga qualified maaha, ama af ingiriisiga ma yaqaano, ama masaa'ilkan ilmaha kale ma doodi karayo, ama caqiide fiican ma dhigi karayo. dee adaa samaysan kari lahaa haddaanad adigu rabin. macallinkaad rabtay, manhajkaad rabtay, waxaad rabtay haddaanad adigu maal gashanaynin oo samaynaynin. tuushakaa rag baa samaystay, adna waxaad ogolaatay inaad lacagta ka bixiso. darfar wuu jiraa. laakiin waxaad rabtaa caqiidada iyo diinta iyo afkaagu inay noqdaan waxa